الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا إن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في الساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. aayadahaasi qur-aanka waxay daahfur u ahayd xaflad si weyn loo soo agaasimay oo dhowaan lagu qabtay masjidka weyn ee magaalada Wilmer ee gobolka Minnesota. xafladan waxaa kasoo qayb galay waalidiin waxgarad aqoon-yahano. xafladan ayaa lagu abaalmarinayay arday ku tartamaysay qur-aanka kariimka qolkii eebe. Sheekh Cabdiraxmaan Geelle oo barnaamijka daadihinaya ayaa sheegay in barashada qur-aanka reer Wilmer ay safka hore uga jiraan, isagoo ka hadlayana waxa uu yiri laakiin nimcada aad haysataan iyo sharafta aad haysataan iyo ardayda aad haysataan iyo macallimiinta aad haysataan wax haysta iska yar marka taa ogaada waana xaqiiqatan waxa kale oo tad ogaataan masaajidkan iyo markaskan iyo culimadan waa jiilba jiil waxaan rabaa inta ay joogaan inay garab taagnaataan cid iskama laha ragii aasaasiga ka tagay oo danooyin ka qabsaday qaar baa dhintay Allah u naxariiso qabriyo ku jira marka mar walba ruuxa jooga ee meesha jooga honor ma aha meesha iskama lahe idinku idin haya wuxuu ku soo kordhiyo wuu idinka tagayaan annaga ka tagnay kuwa naga horeeyaan naga tagay kuwa qabriga ku jira kuwan joogana inta idin la joogaan inaad ku gacmo adeegtaan oo ku dhaganaataan oo ka faa'iideystaan baa idin faran idinka marka intaana insha Allah taala waa dardaan aan rabo inaan reer Wilmer u sheego. Sheekh Cabdulaahi Bunow oo kamid ah culimada magaalada Wilmer ee gobolka Minnesota ayaa sheegay in caruurta ku tartamaysay qur-aanka kariimka qolkii eebe looga farxin doono siinta bil fasax ah iyo siinta hadiyado qaali ah, sidoo kale la geenayo meelo fiican oo ay ku ciyaaraan. isagoo xafladaas ka hadlayana waxa uu yiri ku jiray dadkii maartay imtixaanka wax ka qaaday marka runtii ma sha Allah waxaan aragnay maartay aan soo aragnay waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu mahadiyo weeye ilmaha yaryarka hadda dhageystaan quraanka akhrinayaan iyo sidoo quraanka u akhrinayaan iyo codadkooda iyo itqaankooda quraanka ay sugayaan waxaad malayni kartaan maaha marka insha Allah ta'ala waxaan ugu bishaaraynayaa aabaada meeshan isugu timid insha Allah ta'ala inaad maaragtay aad guuleysateen oo ku guuleysateen tarbiyada ilmihiina iyo maaragtay korintoodii ilmaha korintooda waxa kamid ah waxa la yiraahdo waxbarashada ayaa kamid ah todobada xaq ee ilmaha uu waalidku ku leeyahay ayuu kamid yahay waalidka xuquuqda lagu leeyahay ee ilmuhu ku leeyahay waxa kamid ah inuu mataqaana tarbiyadiisa iyo tacliimtiisa insha Allah marka xafladu waa sidaas hadii Ilaahay ilaado sidaas ay noogu saabsan tahay إن شاء الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بانا إنه دهنا يود قرنا إنسان إن شاء الله تعالى مركب حوي المها امتحان كلا قاضي وليرين هي إن شاء الله تعالى حيوكلا قيم سيئين درجة كوبادية درجة اللبادية هي متقنا كوا كتابة فربرك اللي هذا مركب إن شاء الله تعالى درجة كوباد وحي معلمين تشجعين إن الواب المريض إن شاء الله تعالى لو كتاب مصحف أي كتاب كلا أو متقنا دينية درجة اللبادنا إني متقنا كتاب لسيني دون إن شاء الله تعالى marka inta wixii ka dambeeyay hadii Ilaahay raado aan sida fasax ku noqonayno
marka waalidku sidaa u ogaado insha Allah ta'ala ilmahaas ma sha Allah waxa weeye marka dhageysato qiraa'adooda iyo martaqana wax akhriskooda niyadaada waxa ku soo dhacaysa adiga jeebkaaga ma ka abaal marisaa ciyaalka ilmaha adiga jeebkaaga ma ka abaal marisaa marka aad aragtay ilmuhu siday wax u yaqaanayaan iyo siday quraanka u akhrinayaan iyo siday u jecel yihiin iyo maxabada quraanka ay u qabaan marka isma dhahaysaan runtii ilmahana Mareykanka jooga waxa weeye insha Allah ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idinku guuleeyay idinkuna waad ku guuleysateen shaqadiinii waalidnimada waad qabsateen insha Allah ta'ala wajazaakumullahu khayran insha Allah macalin Amiin iyo macalin Suldaan Bunow ayaa ah macallimiin u istaagay inay caruurta baraan taxfiidka quraanka qolkii eebe iyagoo har iyo habeen u taagan baridda quraanka caruurta labaduba waxa ay kala dhigaan laba dugsi oo ku yaala masjidka weyn ee magaalada Wilmer ee gobolka Minnesota. Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa waalidiinta ku booriyay in dadka la dhaxalsiiyo diinta islaamka lafdhabar ayay u tahay in dadka diinta iyo dacwada la dhaxalsiiyo halka caruurta looga baahan yahay in quraanka la jecleysiiyo isagoo halkaas xafladda ka hadlayna waxa uu yiri tawriisul islaam waxaan dhahnay waan ku celinayaa si ay macallimiintu u ogaadaan waalidkuna u ogaadeen naga dhaxayso diinta waa inaan dhaxashiino ubadka sidee u dhaxashiinaa awalan waxaan ku dhaxashiinaa talqiin waa laqinaynaa laa ilaaha ila allah laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah ilaa xaq lagu caabuda kownka ma jiroon allah ilahay axad la caabudaa ma jiroon allahay waxaan leenahay laa daara walaa naafica wax ku dhii ma jiro xadiiskii waan u akhrinaynaa adduunku hadduu isku yimaado inuu maaragtay ku anfaco waxaan lagu qorin laguma siin karo haddii lagu mehel maaragtay dhibaata kuma gaadhi karto waa qalimaantii maaragtay way engegeen baashashkii iyo buuggii waa la laabay adduunka wixii ka dhacay waa dhammaaday ilaahay wuxuu qoro unbaa socdaa ha baqin ha cabsanin ayaantii ugu talagalaan dhimanaysaa janniya naartaas iyaa loo shaqaysanayaa talqiin laba maxaa dhacday jacayl saddexna maxaa dhacday qancin taasi waa maxay waa qadiyadda la yidhaahdo maxaa dhacday waa qadiyatu tawriis addiin inaan diinta ubadka dhaxashiino shaqada ugu weynaan qabanna waa shaqada cuntada iyadaa ka horraysa raashinka iyadaa ka horraysa guriga iyadaa ka horraysa dharka iyadaa ka horraysa xoolaha iyadaa ka horraysa telefoonada ubadka loo iibinayo waxaas oo dhan addiinu awalan labo arrinta labaad aan ka hadlay waxaan jeclay waxa weeye qadiyadda atarbiyatu ahamu tarbiyaddaa ka muhiimsan min atacliim in ilmaha la barbaariyo ka wanaagsan in ilmaha wax la baro atarbiyatu awlaa tarbiyaddaa ka muhiimsan education iyaa ka muhiimsan inaa qofka wax la baro maxaa ka muhiimsan baa dhacday in la barbaariyo la tarbiyadeeyo walidaalika ilaahay magaciisa waxaa ka mid ah rabb qul acuudu birabbi annaas rabb ilaahay waa barbaariya waa khaaliqna barbaarinaya nabigeenu muxuu qabanayay sal ll slam yucallimuhum wa yusakiihim uuna tarbiyadaynayo waxna waana beraya marka atarbiya ee u fiirso waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان عليه السلام المهي ونريه الدردار يا ولكله يا أبو إلهي هأشركين إنك يجيهم شرك هو ذنبي نساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو
أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. ما شاء الله زرينا أحمد إلهي وحن كبريان كحفظيو macallimiinta dugsiyada taxfiidka qur-aanka kariimka ee magaalada Wilmar ee gobolka Minnesota ayaa caruurta iyo waalidiintooda u qaaday meelaha ugu fiican ee gobolka Minnesota ee fanka iyo ciyaaraha lagu qaato. Haddaba aynu eegno sida caruurtan ay farxadooda u qaateen. Mall of America ayaa la geeyay iyagoo lagu qaaday basas aad u qurux badan.
gobolka Minnesota. Qaybta takfiidka ayaa iyagoo aad u faraxsan kasoo baxay Mall of America iyagoo dib ugu soo noqday magaalada Wilmer iyo guryahoodii. barnaamijkan waxaa idiin daadaheynaya anigoo Leila Sheekh Aadan, waxaadna kala socotaan Somali Wilmer TV. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.